السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay July 20keedii 2018 waxaan halkan ku qabanaynaa war saxaafadeed aan soo jeedinayo anigoo ah Ibrahim Maxamed Xuseen gudoomiyaha ururka UWSLF oo ah urur 25 sano ee u dambeysay dagaal kaga jiray gobolka Soomaali galbeed ee Itoobiya kadibna heshiis la qaatay dawladda Itoobiya 2010 sano ee u dambeysayna xal siyaasadeed ku raadinaya xuquuqda shacabka yaa waxaan isleenahay maanta wuxuu marayaa deegaanka Soomaalida Itoobiya xaalad aan laga aamusi karin oo loo baahan yahay in laga hadlo waxa wada ogsoontihiin in aan ahayn urur muddo ku raadinayay xaqa shacabka Soomaali galbeed dagaal hubaysan laakiin 2010 markii la soo gaaray yaa waxaan fiirinay xaaladda halganku ku sugan yahay iyo xaaladda shacabka iyagu marayo annagoo ka turjumayna duruufta shacabka markaa marayay yaa waxaan go'aansanay inaan xal nabadeed u wareegno wax ku raadino waxaan isleenahay 10 sano u dambeysay waxaanu ka qayb qaadanay bal inaan shacabkii wax ka bedelo ugu yaraan qaybaha kala duwan ee nolosha shacabka haday tahay dadkii dibadii dadkii gudaha isku furma qurba joogta iyo gudihii nabadii oo wax iska bedelo nolosha qofka muwaadinka ah qaybaha ijtimaaciga ah wax badan baan wax ka qabanay nasiib darra laakiin nidaamkii markaa jiray maamulkii Itoobiya ka jira waqtiga ayada ah iyo maamulka maanta jigjiga ka jira yaa waxay weeqeen wixii aanu shacabka u qabanaynay iyagoo uu arkay wixii horumar ah ee ummadda loo qabtay in uu iyaga systemkooda dhib ku yahay xaaladda iyada ah markay dhacdayaan haddana mar labaad waxaan isku daynay bal in jabhadda kale hubaysan ee dibadda jirta ee ONLF in aan wada hadalsiino iyaga Itoobiya si haddii halkaas wixii markaa dadka lagu leeynay dhibka ay jiray oo ahaa dad hubaysan baa duurka ku jira balse taas u xallisanto runtii sanadkan gudihiisa 2018 yaan shir halkan Itoobiya iyo isugu yimaadeen ONLF ka qayb qaadanay laakiin nasiib darro markii u dambeysay shirkaasna waa fashilmay iyadoo ay sababtu tahay maamulkii markaa ka jira Itoobiya iyo maamulka jigjiga ka jira oon ula tacaamulin sidii loo baahnaa maanta waxaad wada ogsoontihiin inuu maamulkii hore meesha ka tagay Itoobiyana uu ka dhacay isbedel uu hogaaminayo Prime Ministerka cusub ee Itoobiya Dr. Abiy Ahmed isbedelkaasi wuxuu saameeyay Itoobiya kale ama ahaa geeska Afrika oo dhan meelaha sida muuqata loo tilmaami karo waxa kamid ah dagaalkii 20 sano ka socday Itoobiya Eritrea u dhaxeeyay oo si degdeg ah lagu soo afjaray gudahana isbedelkaasi si xoog loo saameeyay gudaha Itoobiya haday tahay xagga siyaasadda haday tahay xagga dhaqaalaha haday tahay xagga militariga haday tahay xagga amniga haday tahay xagga qowmiyadaha iyo xorriyad qowlka qofka muwaadinka caadiga hawsha iyada ah gobolka kaliya in ka faa'iideysan waa gobolka Soomaalida isbedelka inta leeg geeska Afrika oo dhan saameeyay gobolkii Soomaalidu waxa la dhihi karaa wax la taaban kara ma gaarin oo macna leh oo isbedelkaasi uu keenay maxay tahay marka asbaabta oo gobolka Soomaalidu isbedelka ula jaan qaadi laaya waxaan isleenahay marka koobaad dhibku waxa weeye maamulka meesha ka jira jigjiga oo ka hor yimid isbedelkii shacabka deegaanka degani Itoobiya oo dhan isaga isbedelka uga horeeyay tan 64 ilaa 87 ilaa maanta wuxuu dagaal ugu jiraa isbedel shucuubta kale Itoobiya oo dhan isaga kaga dheereynay laakiin waxa afka madaxa uga taagan nidaam rajiim ah oo waxba u ogolayn waxaan isleeyahay marka qodobka hor taagan
dowladda shacabka Soomaalida ee Itoobiya in ay isbedelkan ka qayb qaataan waxa weeye maamulka ka jira Jigjiga ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar runtii waxaan isleenahay ama aan marar badan aaminsanaa in xal loo heli karo qadiyadaas bishii Ramadaan 3 bari ciida ka hor baan madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ugu tagay Jigjiga waan la fariistay waxaan ku iri walaalow isbedelkana dhacay shacabkiina waa isbedel doon xal buu u baahan yahay inaad isbedelka ka mid noqoto sida madaxda deegaanada kale ay sameeyeen madaxweynaha Oromada madaxweynaha Amxaarada shacabkoodu markuu isbedelka rabay iyaga hor socday wayna ku guuleysteen maantana shacabkoodu wuxuu goranayaa midhihii isbedelkaas hormar oo hor soco oo shacabkii isbedelka u keen haddii kale dhinac uga istaag oo shacabku iyaga isbedelkii rabee xilka iska dhiib qof ay rabaana iyagu ha isbedelka u hogaamiyo waa diiday waxaan ku yiri okay siiba joog laakiin dawladdan weyne oo dadkii waxbay sheeganayaan xuquuqda wax ka siyaasadii u ogolow waa diiday idan qadiyadii dawladda deegaanka Soomaalida waxay gaadhay meel darbi ah wixii hadda ka laabanna lagama aamusi karo haddaan darbigaas la dhaafinin waxaan leeyahay markaa shacabka Soomaalida maanta dawladda deegaanka Soomaalidu waxa hor taagan dhib ah maamul aan isbedelka ogolayn bal waxaan wada ogsoonahay inuu miciin ka dhigtay wax la xiro wax la dilo wax la qaxiyo wax indhaha loo guduudiyo wax la dhaco waxaan wada ogsoonahay waxa ay ka soo saareen hay'adaha xuquuqul insaanku labadii usbuuc tagtay dhaxdeedii ay kaga hadleen dulmiga ka jira jeel ogaadeen iyo waxa dhacay waxaan anagu waan ogeyn laakiin hadda mujtamaci caalamka ogaanaya waxa meesha ka socda marka waxaan leeyahay maadaama uu yahay sababka ay shacabku uga qayb qaadan la yahay isbedelkan oo nidaamka rajiimka ee wax aqliga galaya jirin ay tahay waxaan leenahay xalku waa sida soo socota midda koobaad waxaan leenahay maamulkaasi xilka iska dhiibo wuxuu ku fashilmay inuu ka turjumo doonistii ummadda sida darteed ha iska dhiibaan xilka in xilka la iska dhiibanayo Itoobiya hadda waa culture ka jira waad garanaysaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dasalin Haile Mariam isagoon cidina ku qasbin bulshada sharaf la isaga dhiibay wuxuu shacabka Itoobiya ugu jawaabay in uu maanta yahay boqorka Afrika in uu maanta yahay qofka ugu xurmo badan ee Itoobiya ka jira marka in xilka la iska dhiibo waa sharaf ee ceeb ma aha talabaad waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed ee deegaanka u dhashay ee isbedel doonka ah waa in ay qabsadaan shir degdeg ah oo heer qaran ah shirkaas oo ka soo qayb galayaan dhammaan wixii ama urur ah ama xataa shakhsi ah ee xal gobolkan iyo ummadan in xal laga gaaro diyaar u ah ama raba saddex waa in shirkaas uu ka soo baxo road map lagu badbaadinayo ama road map labada sano ee kala guurka ee dawladda deegaanka Soomaalida isbedelkeeda loogu talagalay waa in halka laga soo saaro waxaan leenahay waa in dadka Soomaaliyeed ee gobolkaasi ay ka dhigtaan cinwaan ama title ama higasho wax la yiraahdo qowmiyad Soomaaliyeed oo midaysan oo xoog badan wax inta ka yar oo deeqa ma jiro marxaladii ahayd aniga ku garanaya aqliga iyo ana ku dooraya iyo aniga ku garanaya ummadda deegaanka Soomaalidu maanta way soo dhaaftay Itoobiya oo dhan way soo dhaaftay waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo marka koobaad shir ay ku baaqeen dadka isbedel doonka deegaanka Soomaalida oo ka dhici doona Diridhaba bishan 30keeda oo dhammaan xoogga isbedel doonka ay ka soo qayb gali doonaan oo lagu dhawaaqay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa shirkaas waana soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa wada hadal la rajaynayo mar dhow inuu ka dhaxbilowdo Itoobiya iyo ONLF oo runtii isaguna aan isleenahay wuxuu ku soo kordhin karaa deegaanka isbedel badan oo deganaansho iyo nabad ah sidoo kale baaq waxaan u diraynaa dawladda federaalka ku saabsan
dagaalka xuduudda ee dhex socda labada qowmiyadeed walaalaha ee Oromo iyo Soomaali dagaalkaas oo markii la bilaabayna aan ognahay dadkii bilaabay iyo ujeedaday kala haayeen oo rejiimkii hore ahaa maantana aad moodo inay gacmihii ka sii shaqaynayaan yaa waxaan si gooni ah fariin ugu dirahayaa ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Abiy in sida uu haddaba yeelay ee fiican uu sii wado oo ah in la kala dhex dhigo ciidamo labada qowmiyadood laguna soo dabaalo nabad waarta oo dhex marta labada qowmiyadood waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay ilaahay inuu jannadii geeyo intii ku dhaawacantay ilaahay u boogadhayo inta dambana ilaahay xal waara uu na siiyo aad baad u mahadsantihiin